gobolka Bay oo cagta saaray burburka iyo sidoo kaleeta dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil dagaal ka dhacay deegaan hoostaga degmada Burhakaba kaasi oo lagu gubay tuulooyin iyo sidoo kale beero muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa daawade xogta ka dahsoon ee la xiriirta dhacdadaasi laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ku bilowne waxaa dhabaha colaada cagta saaray gobolka Bay iyadoo halkaasi ay saacadihii ugu dambeeyay ka dhaceen dagaal beeleedyo aad u qaraar isla markaana nafta lagu dhaafiyay dad shacab ah oo waxba aanan galabsan iyadoo sidoo kaleeto maleeshiyaadka labada dhinac ee dagaalamaya ay qasaarooyin kala duwan ay isku geysteen haddii aynu ku bilowno degmada Burhakaba ee gobolka Bay wararka ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi deegaan hoostaga uu ka dhacay dagaal aad u qaraar oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo sidoo kaleeto dagaalka ay ku dhinteen ilaa iyo 7 ruux waxaana dhaawaca uu si cagacageenaya tobaneeyo sida ay tilmaamayaan xogaha ka imaanaya degmada Burhakaba ee gobolka Bay waxa ayna arintani salka ku haysaa kadib markii laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega uu dirir ka dhex bilowday iyadoona xoguhu ay tilmaamayaan in la isku haysto dhul beera ah oo ku yaala halkaasi waxa ay sidoo kaleeto wararka ka imaanaya gobolka Bay ay sheegayaan in deegaanka hoostaga degmada Burhakaba oo lagu magacaabo Munawar lagu gubay beero isla markaana halkaasi ay ka dhacday dhacdo uur ku taalo ku ah shacabka ku dhaqan degmada Burhakaba iyo sidoo kaleeto deegaanka Munawar ee hoostaga degmadaasi waxa ayna xoguhu ay tilmaamayaan in beero kala duwan oo halkaasi ku yiilay dab la qabadsiiyay sida idinkaga muuqataba daawadayaal halkani waxa ayna xoguhu ay tilmaamayaan in qasaaro baan uu ka dhashay dagaalka isla markaana labada dhinac ay weli isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay waxa ayna xoguhu ay tilmaamayaan in labada dhinac ay helayaan gurmadyo kala duwan waxaana laga cabsi qabaa in mar kaleeto ay ku dagaalamaan gudaha deegaanka Munawar ee hoostaga degmada Burhakaba ee gobolka Bay waxaana hadda halkaasi ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinacba ay halkaasi ka sameynayaan dadka deegaanka oo xiriiro kala duwan aan la sameynay ayaa inoo xaqiijiyay in qasaaro ba'an uu ka dhashay dagaalka ku dhexmaray labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamayay deegaanka Munawar isla markaana halkaasi lagu gubay ilaa iyo beero 3 hektar ka badan gaaraya beerahaasi oo ilaa iyo 5 beerood ah sida xogaha ay tilmaamayaan beerahaasi ayaana waxa ay sheegayaan wararka inay qayb ka yihiin kuwa la isku haysto iyo sidoo kaleeto kuwa ay leeyihiin beeraha labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka Munawar ee hoostaga degmada Burhakaba ee gobolka Bay ka taagneed xiisad u dhaxaysa labadan beelood ee walaalaha taa oo keentay in xiisadu ay gaarto gacan ka hadal isla markaana qasaaraha intaani la eg uu ka dhasho waxaana xiisadani ay noqonaysaa tii ugu xumeed ee ka dhacda gobolka Bay qaasatan deegaanka Munawar ee gobolkaasi geesta kalena xalay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay deegaan hoostaga oo lagu magacaabo buulo nasiiba waxa ka dhacday dhacdo ceenkani oo kala ah iyadoo halkaasi lagu gubay goobo iyo sidoo kaleeto iyadoo lagu xasuuqay dad shacab ah waxa ayna xoguhu ay sheegayaan in guryo lagu gubay gudaha deegaanka Tuulo Nasiiba ee hoostaga degmada lagu magacaabo Baydhabo ee gobolka Bay iyadoo sidoo kaleeto wararku ay sheegayaan in dad tobaneeyo ruux kor u dhaafaya lagu dilay halkaasi waxa ayna xoguhu ay tilmaamayaan in colaadaasi ay ka dambeeyeen ciidamo la sheegay inay ka tirsan
tirsanaayeen maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaasi oo habbel u abaabulan iyadoo sidoo kale xogu ay tilmaamayaan in labada dagaal ee ka kala dhacay deegaanka Munawar ee hoostaga Burhakaba iyo sidoo kale kan ka dhacay tuulo Buulan Nasiib ee hoostaga degmada Baydhabo ee gobolka Baay labaduba ay isku xiriiraan isla markaana oo u dhaxeeya labada beelood ee halkaasi ka dagaalamaya xogaha qaar ayaa sheegaya in amar uu ku bixiyay dagaalkii ka dhacay gudaha deegaanka Tuulo Nasiiba hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya taa oo keentay in halkaasi uu ka dhaco xasuuq baan oo loogu adeegsanayay dadka deegaanka diriiska maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo saraakiil ka tirsan maamulkaasi oo ka arimiya madaxtooyada koonfur galbeed iyo sidoo kale taliska daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay qayb ka ahaayeen dirirtaasi taa oo cadeynaysa in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo qayb ka yahay dagaal beeleedyada ka soconaya gobolada Shabeellada Hoose Baay iyo sidoo kale Bakola waxaana dhawaan lagu eedeeyay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen in uu qayb ka yahay isla markaana mas'uuliyadda dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolada saddexda ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee kala Baay Bakool iyo sidoo kale Shabeellada Hoose uu mas'uuliyadeedu qaadi doono maadaama isagu uu ku lug leeyahay isla markaana arimahaasi uu adeegsanayo ciidanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya saraakiisha ugu sarsareysa daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like sara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggan follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid